السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelka aqoonsida online. haddii aad ku cusub tahay channelka waxaan ka doonaynaa inaad subscribe noo saarto, like-tana aadan ka iloowin. intaas kadib waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo course yar oo qaybo ah oo aan uga hadlayo adeegyada ay bixiso madbacadda iyo adeegyada waxaa ka mid ah macnaha markii oo la yiraahdo macnaha daawacad oo kale sida loo sameeyo kala boorarka camal iyo sida loo sameeyo shahaadooyinka, buunooyinka iyo kaararka iyo dhikaarada, stiikarada iyo sawir qaadista. sawir marka la soo qaado macnaha sawir qaadista waxaan ka wadaa sawirka marka la soo qaado tusaale sawir oo background leh waxaa la rabaa in la daawaco kale background-ka in laga jaro. tusaale background wuxuu ahaa nooc kale ama kalar kale waxaa rabtaa inaad ka dhigtid macnaha qaabka loogu jaro background-ka waxaasaan baranaynaa iyo si loo daawaco maxallaasi warqadaha kala duwan iyo si loo daawaco macna sawirada. waxaas oo dhan ayaan ku baranaynaa. marka casharkeena wuxuu noqon doonaa qaybo markasta qaybaa soo gudbinaynaa ilaa aan ka fahanno howlaha ay madbacadu qabato. sidaas awgeed caawa ama maanta waxaan ka bilaabeynaa sida loo daawaco warqadaha. si loo daawaco ayaan ka bilaabeynaa. warqadaha waxay noqon karaan laba qayb oo ah word iyo qayb pdf ah. labada qaab si loo kala daawaco ayaan baranaynaa. marka daawasho wacan insha allah. daawasho wacan. marka hore waxaan ku hormaraynaa waadka aan ku hormaraynaa waad aan soo kacsano. waad markaan soo kacsano waad waan u kacsan yahay waa kana warqadda waatana way caddahay. marka tusaale warqadda waxbaa ku qorqoran dukumiinta qorqoran dukumiinta tusaalahaan waa kana oo noqon yahay. waxaan rabnaa inaan daawacno. waxaad samayn kartaa laba qaab oo daawaci kartaa print control b inaad dhahdid amase inaad faylka soo gashid kadib aad ka dooratid print. marka meesha markaad joogtid halkan waxaa ujeedaa qaybtan kore printa qoran. meesha waxaa ujeedaa copy waxaa laga wadaa warqadani meeqa xaba laga daawaca, ma hala ma shan xaba ma tabana tira aad rabtid meeshan gelinaysaa. meesha ay ka qoran tahay printerka marka ayadana waa kala duwan yihiin. computerka haddana waxaa igu xariirsan dhowr printer igu xariirsan. printerka aad rabtid inaad warqadda ku daawacdid aad dooranaysaa. hadda waxaa meesha ii saaran Canon waa printerka weyn meesha ii saaran. waxaa kale ku jiro Epson L3110 ku jiro. waxaa kale ku jiro Epson L3250. waxaa sidoo kale ku jiro L380. marka waxaan rabnaa hadda inaan ku baroweyno midka Canonka ay qoran yihiin. Canonka waa kana hadda waanu dooran yahay. waxaad samaynaysaa saan hadda u dirtid waxaa waaye printerka meelayo waxaad tegaysaa print properties-ka tegaysaa. markaad tagtid meesha waxaa ujeedaa print size, out size, saddexda muhiimsan print size iyo out size iyo waxaa kale muhiimsan one side two size iyo booklet. haddii warqadda oo printer ku jirto ay tahay A4 labada meel waxaa ka dhigaysaa wad A4 ka dhigaysaa. markaa ka dhigtid marka tusaale waxaa daawacirtaa oo kale book kale oo dhowr page ka kooban. marka waxaa u rabtaa oo kale waa one page oo kale inaad daawacdid
maana warqadii hal dhinac bis in wax u qortid arabtaa waxaa ka dooranaysaa one side. haddii aad rabto labada dhinac page garaac maana si loo dhaho page garaac labada dhinac waxaa rabtaa in wax ku qortid kadib waxaad dooranaysaa two side. way fahanto malena two side dooranaysaa. booklet waxaa waaye warqadan A4 ah waxaa u sameynaysaa maana afar qaab maana warqada oo A4 isku laabay qaab B5 ah in isku laabo oo afar qaab afar page galayso waa buugta yar sheekooyinka waxa loo talagalay in lagu akhristo. marka inta markaa soo dhameyso ama markaas kadib waxaa leedahay okay marka hadid tira aragtid meesha aad geysid kadib waxaa leedahay print ayaad leedahay okay print marka hadid kadib boogos oo daawacma warqada printerka nooca kale aan tijaabino tusaalahaan noocan Epson 380 printerka waxaa loo talagalay warqad A4 oo ka daawaci kartaa laakiin badanaa waxaa loo adeegsadaa asiga jildiga maana buug markaas sameys coverkiisa lagu daawacaa kofarada lagu daawacaa sidoo kale waxaa lagu daawacaa sawirada lagu daawacaa sidoo kale waxaa lagu daawacaa shahaadooyinka oo lagu daawaci karaa waxaa lagu daawaci karaa stiikarada. marka doortay kadib asana wuxuu leeyahay asana qaybo uu leeyahay tusaalahaan qaybta A4 waa tahay oriented macna warqada jifjifmed tagtagmiya meesha ka dooranaysaa. marka haddii A4 ay tahay oo keliya ama ay tahay cover caadi saan okay bas inta meesha black ano sanad kan waa color kan waa black. marka daarta colorka aad ku dhufanaysaa haddii rabtid black ku dhufanaysaa okay leedahay. laakiin haddii aad rabtid warqada si clear ayna usoo baxso sawir oo kale daawacirtaa meeshan waxaa majirta quality ay qoran tahay hadda standard waay waxaa ka dhigaysaa markaas print type waxaa ka dhigaysaa meeshaad blank paper ana doonta waxaa ka dhigaysaa Epson mate marka dhigtid kadib saana ku daawaci kartaa si kale usoo bixaysaa sida haddii aad sidoo kale warqadaha AVCda oo kale marka la daawaco oo kale markaas waxaa leedahay tan standard ku ahaato may blank paper ku ahaato kana hay ka dhigaysaa. haddii aad daawacid sidoo kale waa stiikarada oo kale saana ka dhigaysaa. laakiin haddii aad rabto inaad sawir daawacdid meeshan plain paperka waxaa ka dhigaysaa Epson mate kadib meeshan quality waxaa ka dhigaysaa high ka dhigay quality waxaa ka dhigaysaa high kadib okay leedahay kadib okay waa print leedahay kana ku dhufanaysaa printer kadib okay waa ku daawacmaysaa. waadka waa fahanay qaabka wax lagu daawaco iyo sida loo adeegsado markii la daawacayo waa fahanay. waxaan rabnaa hadda inaan idin tuso qaab PDF ah. tusaalahaan document waxaa laga yaabaa inuu PDF yahay marka warqad PDF noo raadi warqad PDF ah tusaalahaan warqad PDF kana buuggan kan waa buug oo wuxuu kooban 30 page kooban yahay asigana waxaa leedahay control B saana ku soo bixisa. markay ku soo baxdo waa sidan iyo hadwaadka ay kana isku mid waa printer magaciisa meeshan ka dooranaysaa meeshan koobiisa inta aragtid inaad koobisid intana propertiesga laba A4 haddii meesha warqada A4 ay tahay A4 dooranaysaa haddii A5 ay tahay A5 dooranaysaa haddii B5 ay tahay B5 dooranaysaa. faafahsama labada meel marka warqada meesha ku jirto oo printer ku jirto markaas ku xukumayso oo aragtid wax ka daawacid. kadib intan hawaa two side iyo one side waa soo taqaana waa soo baratay kadib waxaa leedahay okay kadib waxaa waaye halkan ka daawacaysaa oo keliya. hadda sidoo kale waxaa rabaa inaad ogaataan tusaalahaan buuggan wuxuu kooban yahay 30 page waxaa rabtaa oo keliya inaad daawacdo karo page-ka koowaad oo kale keligiis inaad daawacdartaa. meesha waxaa ku qoran current view current page all pages
pages kamid ah kala siinaysaa marka sidii kadib waxaan oo iska tiri kartaa marka page ka aragtid inaad daawacdid aad dooranaysaa haddaad aragtid inaad samaysid inaad aragtid inaad daawacdid page koowaad ilaa page 10 waxaa leedahay page 1 ilaa iyo page 10 leedahay oo keliya haddaad aragtid inaad daawacdid haddaad aragtid 15 keligiis inaad daawacdid page 15 waa fahamsamaha kadib waxaa oo kale leedahay qaybta koowaad casharkeena waxaan ku baranay waxa waaye si loo daawaco Word iyo PDF marka aad document ay qaab u daawacaysid aan rabay inaan kula wadaago marka wixii taasi ka dambeeyna qayb aan isla socodnayna marka waxaan garanaa page channelka inaad subscribe saartid waad ku mahadsantahay daawashada. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.